xildhibaano ka kala tirsan labada aqal ee golaha shacabka iyo sidoo kale aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay cidda buuxinaysa kursiga gudoomiyenimo ee baarlamaanka Soomaaliya qabiil ahaan soo bixinta warkeena ugu soo diray wariyana Maxamed Ciise Maxamuud. dood adag iyo xiisad ayaa ka dhex taagan baarlamaanka dhexdiisa taa oo ku aadan cidda isu soo sharaxi karta gudoonka baarlamaanka oo baneeyay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. ma jira sida ay sheegaan xildhibaanada qaar qodob dastuuri ah oo u diidaya qof kasta oo baarlamaanka kamid ah inay isu soo sharaxo xilka gudoonka baarlamaanka xitaa waxay qaarkood sheegayaan in Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari mar kale uu isu soo sharaxi karo. senator Mustafa Maxamed Qodax ayaa sheegaya in xiisadda arrintaasi la xiriirta imika laga dareemayo magaalada Muqdisho. kursiga Jawaari baneeyay meel un baa loo filayay inay qabaa'illadii Soomaaliya loo filayay waxaad moodaa inay jaha cusub siyaasadda yeelato guux badan baa jira oo beera aan weliga kursiga hungurayn baad moodaa inay hungureynayaan maxaa ka dambeeya xiisay kusoo kordhisay siyaasadda oo dhinac waxaad moodaa inay waxoogaa 4.5 iyo dad lagu marginalize gareeyay oo lagu dulmay 4.5 ka inay fursad ka heleen baad moodaa dad aan gudoomiyaha baarlamaanka soo hadal qaadi jirin gudoomiyaha golaha shacabka ayaa imika hadal haya inay u tartamaan laakiin dastuuriyan aan wuxuu diidaya aanu jirin dhinac kalena xiisay siyaasadda kaga soo kordhiso waxaad moodaa inay iyana phenomena kala ayaa muuqato oo in xitaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo oo iyaga laftoodu beela khaas ah u xidhnaa in ay isbedeli karaan. xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaano kale oo baarlamaanka ka tirsan ayaa dhankooda aragtiyadooda ka dhiibtay arrintan. gudoomiyaha ku-xigeenka labaad cid walba oo Soomaali ah oo cid walba oo muwaadin Soomaaliyeed ah oo xildhibaan ah oo 275 kamid ah ayaa soo sharaxi kara wax xeer oo joojin kara xeer oo joojin karana ma laha dastuur joojin karana ma laha wax loo qeexay cid gooni u xirantahay ma laha doorashadii hore hadda markii speaker kala dooranayay de qawaa'ilo madaxweynaha raadin jiray ra'iisul wasaaraha raadin jiray sharaxay waa gartay waa laga soo gudbay gudoomiyaha ku-xigeenada labaad qawaa'ilo iyagana kuraas kala raadinaya haddana iyagana isu sharaxay waa laga soo gudbay annaga kullaybo sharciga haddaan ku hadlo يعني غير هبل كلية ما أعرف أي أفرنت هاي أفشر عياد معه لكن تذكر وجهين سوماليات هدانا إسرائيليين لين برلمان كانوا وجه هاي سيد عن كفر لنا وأول وجهنا هاي ويفهم سوما نقول بما أنت وجعلها إنه مدحوينه إنه يسوع تاجو ضبطنا سوماليات كلسوني سين لهاي ما قرتي أما هدي ما أنت أدي كان نقف كذا وما أنت leadership وقف ما أنت وقف دي أما كان مدحوينها أما كان برايم مينستر أما كان قدوميها برلمان أما كان قدومي حقيقة كويت أما كان قدومي كويت لبعض وحلا يا با أديله دينه يرادو ورنيو ورشح عن أيضا يرادو يا واي وهذا اللي وفق ليه إسلامك يعني إن لي أركاي ورنيو إن كان محوضة فضول ما حد عيب شيء سواه هاي ستاي ما بيشان وما تقدر ليه هاي إنه أيضا ما أعطي دار وكساره. محمد عيسى محمود، صومالي كابل تي في، مقدشو.